kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan munaasabad si weyn loo soo agaasimay looguna dabaaldegayay sanad guuradii 16aad ee aasaaska dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. xafladan oo ka dhacday magaalada Amsterdam ee wadanka Holland ayaa waxaa soo qaban qaabiyay ururka jaaliyadda Puntland ee wadanka Holland. waxaan u hambalyeeyaa shacbiga reer Puntland hambalyo ku aadan sanad guuradii 16aad ee aasaaskii Puntland. waxaan jeclahay inaan mar labaad iyo mar saddexaad ba iraahdo shacbiga reer Puntland hambalyo. Puntland 16 bay jirsatay, wax badanna way xaqiijisay, wax badanna way ka maqan yihiin. Puntland waa deegaan Soomaaliyeed guushiisa waa Soomaaliya bilaa guusheeda. intaas haddaan hambaliyada aan kaga baxo, anigu dadkii meesha ka hadlay wax kaleeto ayaan dheerahay hambaliyadaas ku saabsan. maadaama aan nahay guddigii xafladan soo abaabulay ee jaaliyadda ay dooratay, waxaa nala habboon in aanu waxqabadkeygii intii guddigu jiray aanu wax ka sheegayno, wixii aanu hiigsanaynana aanu ku darsanno, wixii na hortaaganna aanu ka dhawaajino hadday na hortaagan yihiin. waxaan ku horreysiinayaa waxqabadkeygii. muddo yar oo aanan gaarin sanad yaan guddiga jaaliyadda ahayn, jaaliyadda u dhaqdhaqaaqaynay. waxaan ugu horeyn aan ummaddan reer Puntland ee Soomaaliyeed u sheegayaa, dadka waddanka ku nool reer Puntland muddo 20 sano iyo ka badan intii burburkii dhacay way ku nool yihiin. waxa weeye jaaliyaddu mar walba waa isu imaanaysay, laakiin sharciyad ma lahayn. annagu jaaliyadda waxaan u sameynay sharciyad iyo kala dambeyn yaan u sameynay. sharciyadaasoo waxa weeye afka Hollandeeska lagu yiraahdo statute. jaaliyadda waa soo sharciyeynay, si official ah ayay u sharciyeysan tahay. sharcigaas aan sheegnay waxaa la isugu yimaaday shirkii 3 biloodka ahaa ee sharciga ku xusnaa yaa la isugu yimi oo lagu falanqeeyay ummadda oo dhanna laga martigeliyay. intii timi waa la garanayaa, intii aanan timina nasiib xumo waxba kama sheegi karaa. waxa weeye miisaaniyad baa ku baxday hawshaas aan sheegay. jaaliyaddu hadday guddi dhisato waxay markhaati ka kacday oo ay ballan qaadeen inay taageerayso wax allaala waxay qabanayaan, inay ku taageerayso wadanaha reer Puntland ah, danaha Soomaaliyeedna ah, inay ku taageerayso ayay ballan qaadeen. nasiib xumo guddiga ayaa arrintaas looga haray, ayaga keliya ayaana qabtay. waxaanu qabanay intii aanu guddigu uu arrintan ku howlanaa, waxaanu qabanay markii isbedelkii uu ka dhacay Puntland xaflad weyn aada loo soo agaasimay. xafladaas waxa weeye dadkii joogay baa joogay, kharash ciidaa ka badan baa ku baxay, dadkuna way ka wada qayb qaateen inta badan. waxaa waxqabadkayga ka mid ahaa, waxqabadkayga keliya maaha inaan xaflado qabanno, waxaa waxqabadka jaaliyadda guddigeeda ka mid ah in qof kasta oo mas-uul ah oo reer Puntland ama Soomaaliyeed in soo dhaweyntiisa iyo miisaankiisa uu ku leeyahay bulshada laga dhex muujiyo, aada loo soo dhaweeyo. waxaa noo yimaaday mas-uul Soomaaliyeed Dr. Aadan Maxamed Cali oo muddo 14 casho halka marti noogu ahaa, message-na waday ku saabsan ummadda Soomaaliyeed sidii la isugu keeni lahaa. mar labaad meeshii boogtu ka qorantayna la isla falanqeyn lahaa. ugu nimid inaanu xusnaa 16 sano guuradii dhalashada Puntland. dhalashadii Puntland waa mid aan ku barbaarnay, ku danaysanay, ku istareexnay, dadkeenna wax ku barnay, nabadgelyadeena ku ilaashanay, bulshadeenna caafimaadkeeda ku ilaalinay. haddii aanan dhisan Puntland waxaan ahaan lahayn meel bayla ah. cududeennaanu midaynay, ilaah baa mahad leh. arrintaas ayaan u nimid
ومالي وين وقيمة وين إنه فدينا ما هكريه إن أنا أحف لذينون إن أنا بودلان كديون بودلان وحي أباهن تهي تاكلين يباهن تهي waxaynu u kulansannahay inaynu xusno sanad guuradii 16aad ee dowlad goboleedka Puntland waxaan goobjoog ahaan jiray iyadoo la xusayo 26 Juun iyo 1 Luulyo waxaan saa u leeyahay waxaan soo gaarnay annagu aanu jiri jiray mar Soomaaliya wax wada leedahay oo aan degaanbo kala gaargaara aanay u xafladayn waa ayaan darooyinka Soomaaliya gacmaheeda ku kasbatay xaaladdu maanta meesha ku sugan tahay Puntland professorku intuu yidhi waxaan ku darayaa ma badna oo aan ahayn dowlad iyo shicibba dadka Puntland ku dhaqan oo 16 sano jirsaday wax badan bay qabsadeen xaqiiqdii adduunyana had iyo goor waa qabyo wax badan waa dhiman yihiin in ay dadaalkooda sii wataan oo wixii ay kordhin karaan dhinac walba kordhiyaan yaan kula talinaya anigu tan uu professorku yidhi aynu ka qayb qaadano baahiyaha ka jira Puntland shakhsi waan ka ahayo dee dabcan anna waan la qabaa fikirka Puntland 16 sano wax badan bay qabsatay oo ku noqdeen wax badan waa ka waxaysan yihiin waxaa ka mid ah Puntland waa kala maqan tahay maanta hadda cidda ma kuwa maqan ciddii gaar ahaan u deganayd baa mas'uulka ah markaas waxay ku calaamaysaa cidaan qayb ka qaadan oo la degaana oo dowladda ay wada dhisteen taasna cidaan ka hadlay waxaan u maleynayaa inta uu xogayaal Puntland waa garanaysaa qoriga dab kale ee guud ahaan Soomaaliya lagu baabiyay yaa Puntland loola yimi markaas la aqbalay weli meel uu ka qiiqaya ka baxaya dabkaas laakiin Puntland uu taalasay u darin lahay waana looga fadhiyaa distoorka maalintii la ansixiyay waa joogay qaabka loo ansixiyay madaxweyne uu u dhaartay dowladku wuxuu u dhaartay distoorku ku dhaartay xilka ka saaran ee koowaad waa isku haynta Puntland tii tageena waxay la tahay hadduu ka gaabiyey kuna guulaysan kan joogaana waa xil looga fadhiyo Puntland midnimadeeda kuwa meelaha maqan iyo inta joogtaba isku haynteeda iyo isku keenkeeda waa wax looga fadhiyo mansuuran waxaa la yiraahdaa waa idin weeyay waxaa iska leh abwaan la yiraahdo cali cilmi afyare naxariistan Allah ka waraabi wuxuu yiri waqtigii 1900 waxay ahayd 65 markuu tiriyay Allah naxariis cali cilmi afyare mansuuran wuxuu yiri in dowladda gabayni ma tirin ama say geeraare garbaadka iyo feeraha ka jaray gobolidiisii iyo geeduhu haddii ay martaan oo la kala guuro ku dhammaaday xooluhu way gamashiyaaniine aniguna gabor baa noqdiyo neef jilaan qale ee gowdkaan idiin sugi jiriyo ma haye gaaxdii iyo 5 hal oo aan gobadkooda nacay waa igeli weynahuli من هدوء جوع القلب ويكون بدنايو قالها هدوء لحر بو عدو قولايو قوتي قلوصلا هدوء نوق فينايو قهاتا إلي قيرابا هدوء قوح هدنولايو قوبنما كوكا يغلطلو قوشي سومريتي وحا جيس كتير قلوبولي وإجلويلي قفكو سعوفا كدعا يا حقا ليو بدايا ينيو ويروفو قلب سلام لو أغال دويني قال لما واحترين يجينا قعدها يسانا واحد روك الوصلها ياكي واحد ودعيه وبصومالي جيسي الكدمي قارك هنجري وكل سؤال بقول لك شنتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام كده مركب هو وحنو ما نقيا أودياشي كلينيردي يهويكي سوق من كابي حفلة تنقره دبر. مركب اللبات واحد رباط كنا نقام بريء أنا بقول هذا مجا يوم مجا عدد كان مثلا دور ده سوالي بتوبيا دل كهورن inaan u gudbiyo hambariyo aan uga sido dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya sanad guuradii 16aad ee aas-aaskii Puntland marka waxaan leenahay hambaliyo nabad baad ku gaarteen waxaa kaloo ammaan mudan sida kala dambeynta leh wanaagga leh ee aad u dhisateen maamulkaas 16 sano ka hor iyadoo la ilaalinayo weli sharciyadii la dejiyay odayaashiina ay ka maqraati kacayaan sida ay markasta ugu helan yihiin
haddii ay khilaaf soo dhexgalaan dhinaca siyaasiyiinta inay mar kasta xaliyaan. marka hore waxa badanaa ummadda isweydiisaa magaca Puntland waxa uu yahay iyo asal ahaan meesha uu ka yimid. Puntland sideedaba waa markaynu Soomaaliyeeno waa dal udug magacaasna wuxuu baxay kumanaan sano ka hor wuxuuna inooga yimid dhanka masaarida waxay ganacsi ballaaran la lahayd Soomaalidii markaa degneyd dhulkan hadda Puntland la yiraahdo. magaca waxaa bixisay boqoradii waddanka 23 sano boqorada ka ahayd masaarida oo la dhihi jiray Xibsashood. haddii aan u dhaadhaco hogaamiyaasheedii marka hore intaan hogaamiyaasha aan u dhaadhaco waxaan u dhaadhacayaa Puntland dadka Puntland waxa way dowga ay ka cayaareen xornimo dilkii iyo gobonimo doonkii. waxaan sidaan wada ogsoonahay Ilaahay guud ahaan naxariis ha siiye 13 wiil oo SYL la dhihi jiray Somali Youth League waayo horena ahaa Somali Youth Club. 13 wiil waxaa ka mid ahaa 4 wiil oo asaasiya haddaan ku bilaabo ahaa Yaasiin Cismaan Sharmaarke waa ninkii isu keenay 13 wiil kadibna ku dhiirigeliyay dhalinyaradii markaa dhiirineed oo joogtay si ay xornimo u helaan. 4 nin ayaa ku jiray deegaan ahaan kasoo jeeday Puntland. markaynu ku bilaabno hogaamiyahoodii oo ahaa Yaasiin Cismaan Sharmaarke wuxuu ahaa qofka labaad Daahir Cismaan Sharmaarke waa dhaga weyne waa walaalkiisa la soco. qofka saddexaad wuxuu ahaa Maxamed Xirsi Nuur CD. kan afraadna wuxuu ahaa wakii ugu dambeeyay aan rajeynayo inuu geeriyooday Cali Xasan Cali Barduura. haddii aan u sii dhaadhaco hoos wax yar waxaan rabaa halkan inaan ku soo bandhigo sidii aan hore idinku sheegayba Puntland waxay lahayd hogaamiyayaal dadkooda u horseeday kala dambeyn maamul iyo ganacsi wadaag adduunka oo dhan. haddii aan ku hormaro Suldaan Maxamuud Cali Shire wuxuu ahaa suldaankii ka talinayay gobolada Sanaag ama Somaliland loo yaqaano. Maxamuud Cali Shire wuxuu talinayay 1897 ilaa 1860. qofka ku xiga oo halkaas saaran waa Boqor Cismaan Maxamuud isna wuxuu talinayay muddo aad u fog. haddii aan hoos u sii dhaadhaco waxaa jiray isna Suldaan Yuusuf Cali Geenidiid oo ahaa fariisinkiisu hubyo. maxamed xasan cali kusoo dhawow Puntland TV waxaa ka mid tahay qabanqaabiyayaasha barnaamijka caawa halkan ka dhacay dareenkaagu seeyahay. dareenkayga aad iyo aad buu u wanaagsan yahay. aadna waa ugu faraxsanahay inaanu qabanno xafladda Puntland sanad guurida 16aad ee Puntland asaaskeedii aad baan ugu faraxsanahay 100%. waxaa ku daawanaya dhammaan shacabweynaha Puntland. maxaa fariin u diraysaa shacabweynaha Puntland ee ka daawanaya TV-ga Puntland TV? waxaan leeyahay shacabweynaha reer Puntland dhammaantiin igula dabaaldega ama aynu ku wada dabaaldegno sanad guurida 16aad ee Puntland. waxaana leeyahay meel kasta aad joogtaan dal iyo dibadda ciid wanaagsan farxad wanaagsan sanadkiisa Ilaahay nabad iyo barwaaqo ku geeyo. aad baad u mahadsantahay. kusoo dhawow Puntland TV dareenkaaga caawa. magacaygu waa Abshir Maxamed Baafe Abshir Dheere waxaana ka mid ahay jaaliyadda Puntland ee ku nool cariga Netherland. waxaana caawa u dabaaldegaynaa sanad guuradii ka soo wareegtay 16aad ee aasaaskii dowladda Puntland. dareenkayga wallaahi aad baan u faraxsanahay. ciid waxaan oran karaa waa ciid aad baan u ciidayaa sababtoo ah dadkayga iyo dalkaygii waxay gaareen iyo farxadda iyo nabadda la gaaray ayaan ku damaashaadaynaa waana inaan ku mahadinaa wixii la gaaray. maxaa fariin u diraysaa shacabweynaha Puntland ee ka daawanaya TV-ga Puntland TV? waxaan u dirayaa fariin baan u dirayaa waxaan leeyahay nabadda aad haysataan ilaashada. markaan idinka nabad ilaashataan oo heer gaartaan intaad hadda joogtaan aad ka sii dheeraataan oo heer gaartaan ayaa dadka Soomaalina wax u tari kartaa. marka nabadda ku dadaala dawladda iyo shacab gacmaha isqabsada dantiina iyo dalkiina idinku isku tashaday dadnaha ku tashanina. aad baa u mahadsantahay. kusoo dhawow Puntland TV xaruntiisa waddanka Holland ee dareenkaaga. dareenkayga magacaygu waa Mustaf Saciid Cartan anoo dareenkayga soo koobaya farxad iyo bashbash iyo ciid wanaagsan iyo dabaaldeg aan soo koobi karin bay dareenkaygu.
maxaad fariino u diraysaa shacabweynaha reer puntland maadaama ay ku beegan tahay sanad guuradii 16aad ee ka soo wareegtay xilligii la aasaasay waxaan dhahayaa shacabweynaha puntland nabadiina ilaashada kala damayntiina ilaashada dowladdiina ku kalsoonaada madaxdiina ku kalsoonaada amnigiina sugta intaasaan oranayaa aad baa u mahadsantahay maadaama ay tahay sanad guuradii 16aad ee puntland oo ka soo wareegtay xilligii la aasaasay lagana daawanayo dhammaan daafaha puntland TV-ga puntland maxaad shacabka puntland hawada ugu marinaysaa hambali aad u weyn nabadda ay haystaan inuu ilaahay u rajeeyo mid kasii kheyr badanna uu sii siiyo iyagoo isku duuban all dee dhulka puntland meel walba ay taalo iyo geesinimadooda iyo dee horumarkooda in dee all adduunka laga arko kusoo dhawow puntland TV xaruntiisa wadanka Holland dareenkaaga caawa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dhammaan ummadda reer puntland iyo shacabka reer puntland madaxda ugu horeyso dhammaan waxaan leeyahay sanad guuro wanaagsan aad iyo aad baan u faraxsanahay dhammaan shacabka haddaanu nahay reer Holland ee wadanka Holland ku nool aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaanu soo dhaweyno caawa halkan u soo jeedno xafladii sanad guurada puntland aad iyo aad baan ugu sahay runtii dareenkayga ma soo koobi halkan kuma soo koobi karo runtii farxadda iyo qiirada iyo sidii waxaan ummadda reer puntland aad ugu adkeynaya inay ilaashadaan nabadda iyo horumarka ay ku soo nooloonayeen 16 sano waxaan u rajeynayaa sanadaha soo socda inay ku guuraan ama aad iyo aad ugu sii horumaraan dhinaca horumarka nabadda cadaaladda haddana waxaa ila taagan gabar ka mid ah qabanqaabiyaasha xafladda aan ku sugannahay dareenkaaga walaal dareenkayga aad iyo aad lama qiyaasi karo aad baan u faraxsanahay waxaan halkan uga hambaliyeynayaa horta waxaan ahay jaaliyadda puntland xubin ka mid ah aad iyo aad dareenkayga lama qiyaasi karo shalay mar baan waxaan isiri alla yaa diyaarad ku saaro ku geeyo garoowe marka dareenkaygu halkaas soo marayaa mustafa waa mahadsantahay waa dhowahay haddii aan ka warramo dareenkayga caawa aad buu u sarreeyaa taas oo aan u dabaaldegayno 16 guuradii asaaskii puntland oo ah mid qiimo weyn ugu fadhida shacabka puntland iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed walaal ku soo dhawow puntland TV dareenkaaga waa ku dhawaa wallahi caawa aad iyo aad baan u faraxsanahay maadaama aan ka soo qayb galnay xafladda puntland 16 guuradii puntland state of Somalia aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay puntland meel kasta ay joogaan hambalyo yani laakiin waxa igala fiicnaan lahayd inaan barxadii Garowe joogo shalay fantaasiga ka dhacay iyo quruxdii ka dhacaysay laakiin alxamdulillah calafkayga ma noqon laakiin aad baan ugu faraxsanahay inaan caawa Holland ka qayb galo maxaad fariino u diraysaa shacabweynaha puntland maadaama ay dhammaantood ku daawanayaan wallahi shacabweynaha reer puntland waxaan leeyahay isku duubni iyo wanaag iyo waxaan u rajaynaa ma aragtaa sanadkan sanadkiisa kale inay ku gaaraan barwaaqo aad baa mahadsantahay ku soo dhawow puntland TV caawa waxaanu joognaa xafladda puntland 16 guuradii puntland ka soo wareegtay markii la aasaasay see weeye dareenkaaga السلام عليكم أمد سومالي ذا أما إسلام كأدون كدن كوذا نول عاو آدي أفرح سنة هاي محيا لي واللحية تمن كي جورة دي بوتلان آدي بنا أفرح سنة أنا كسوق قيب قلي وحنا هي وحفي عم بحلفة دوا بيرفكت الحمد لله آدي بوفي عنتها هاي وحنا رجينا إني جوشاسي يقول كسي وين بقارن دمان maxaa fariino u diraysaa dhammaan shacabka puntland maadaama ay ka daawanayaan TV-ga caalamiga ee puntland dhammaan waxaan u dirayaa in ay dadaalaan sidii hadda u dadaaleen inayna mar kasta isku xirnaadaan oo ay qof kaliya wax ma qabto inay isku xirnaadaan inay iscaawiyaan inay dhammaan Soomaalida puntland oo dhan inay aad iyo aad meesha hadda gaareen iyo kasi fiican ay gaareen baa rajeynaya inay taasna ku sii socdaan waa mahadsantahay waxaan ku sugannahay xarunta ay ka dhacayso sanad guuradii puntland dadka ayaan dareenkooda weydiinaynaa ku soo dhawow telefishinka caalamiga ee puntland see weeye dareenkaaga dareenkayga aad buu u sareeyaa waa mahadsantahay marka ugu horeysa ee tawfiiq caawa oo aan joogno wadanka Holland magaalada Amsterdam waxaan halkan tahniyad uga diraynaa aad u qurux badan shacbiga reer puntland meel walba ay joogaan oon leenahay ilaahay waxaan idinka rajaynaynaa horumar iyo barwaaqo iyo sharaf iyo qiimi intaan gaarteen in ka sareysana Allah insha Allah idin gaarsiyo noqodana xidigti Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ku dayanaysay
ayaan leeyahay waxaan ku faraxsanahay didiilaha cusub iyo janjiga reer Puntland ay sameeyeen sanadadii u dambeysay waxaana leeyahay saa ku sii socda waana mahadsantihiin jazakallahu khayr maadaama laga daawanayo dhammaan daafaha Puntland aad ka hadlaysay TV-ka caalamiga Puntland maxaa macnaha waxa fariin u diraysaa shacabka reer Puntland shacabka reer Puntland waxaan u dirayaa maadaama aan gabar Soomaaliyeed ahay aanan asalkii reer Puntland ka soo jeedo waxaan leeyahay fadlan wada shaqeeya gacmahooda jira galadi ku jirta horumarka hal qof ma sameyn karo laakiin shacbigu ha sameeyo ayaan dhihi lahaa aad baa mahadsantahay inta Puntland ma barsiinaya waxaan leeyahay in kastoo murtida bari maalmada ka jeelsaday in kastoo macnaha gabay meel aan istaba dhigay in kastoo ku maran yihiin maankayga erayadu maalin aan ku dayn karin waxaan soo mirkacayaa xeer mudan markuu helo sida maamulkeena Puntland loogu magacdaray maha maanta keliya barigaan maqsuudee miyirkaynu raacee Puntland maashay nabado maskiin iyo mid hoola leh meel saray u qaadeen munadeeda quruxda leh maaha maanta keliya marxuumkii dhisee yiri Puntland madaxweynuhu ugu horeeya soo dhisay ilaa jannada firdowsa ka waraabiyo Cabdullaahi Yuusuf Axmed marxuumkii dhisee yiri maamul saanad wacanoo loo siman yahay idilkeen mudnaanta iyo cadaaladda marna aan hareer marin midka jira midkaan dhalan iyo kumanaan sano iyo madimaan sano badan ay ka wada macaashaan ayaa Puntland loogu magacdaray
ilaashaday dhaxaadeg iyo salan saawi uu ku beero barya caashaqta hashaday dhaxaadeg iyo salan saawi uu ku beero daawadayaal inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aad kala socoteen Puntland TV xaruntiisa waddanka Holland dhanka farsamada iyo kaamirada waa Sayd Cali Casayr intaan barnaamij kan la mid ah ku kulmi doono waa Tawfiiq Shiro oo idin leh nabadiino